engineer Yasin aad iyo aad mahadsantahay adiga iyo dhageystayaasha qaayaha leh ee ku toosan ama ku xiran sida joogtada ah oo la socda wararka ku saabsan bariga dhexe iyo qadiyada wadamada Carabta oo dabcan Soomaaliya ay waxyaalo badan ka dhaxeeyaan ama dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad aad u daneeya bal caalamul islaam iyo dhamaan bal dunida waxa ka soconaya iyo wararka ugu dambeeyay iyadoo tan ay tusaale u tahay bal sida bulshada Soomaaliyeed ay ugu xiran yihiin wararka caalamiga inaguna mar walba inaynu ka haqatirno aynu runtiina ka tirno bal wararka ugu dambeeyay oo ugu yaraan bal wararka muhiimka ah waaweyn ee diblomaasiyadeed aysan dhaafin iyo danaha caalamku leeyahay iyadoo dunidu hadda ay siyaabo badan u guurayso oo siyaabo badan isku sii xirmayso dalal badanna ay saaxiibayaan kuwa horena ay kala tagayaan inaynu la socodsiino ayaanu jecelahay wararka caalamiga in la wadaagno maanta wararka waxa ugu sareeya runtii warar cusub ayaa jira oo runtii dhinac walba inkastoo dalalka Qatar aad moodo inay aad soo fatahayaan ama soo badanayaan dalalka taageeraya iyo dadka taageeraya aynu ku bilowno bal wasiirka difaaca dalkaasi Qatar ayaa wuxuu ku dhawaaqay inay soo afmeereen ama soo afjareen waxa ugu yeeray dowladtuskii ugu weynaa ay wada sameeyaan ciidamada Qatar iyo ciidamada dalka Mareykanka oo ka dhacay halka loo yaqaano Al-Galaya wuxuuna sheegay in halkaas uu ka bilowday balse badda iyo dhulkaba iyo cirkaba ciidamadu ay runtii ku qabteen buuri iyagoo dhowr qaybood ah dowlatus military oo runtii qaayale buuri wuxuuna ku soo dhamaaday buuri si nabadgelyo ah oo runtii ah sidii loogu talagalay ayuu sheegay wasiirka difaaca dalkaasi wuxuu sheegay in tababarkaas ay ka qayb qaateen ama ay goobjoog ka ahaayeen buuri General Mohammed Abdullah Fataasi Al-Mari oo ah taliyaha ciidanka qalabka sida ee dalkaasi Qatar sidoo kale uu goobjoog ka ahaa Belgrade ninka la yiraahdo David Barr oo ah taliye sare ama military attaché dadka ciidanka militariga dalkaasi u qaabilsan oo ah saraakiisha sare ee dalka Mareykanka iyo xubno kale oo ciidamada saraakiisha sare ee ciidamada labada dal ah ayuu sheegay wasiirka difaaca ee dalkaasi wuxuuna ku dhawaaqay in horumar ay gaareen ciidamadiisu ciidamada dalka Qatar ayna soo bandhigeen buuri sidii looga bartay yani dowlatus balaaran sida uu sheegay mar goor dambe asaguna uu xaqiijiyay taliye General Mohammed Abdullah Al-Fataisi Al-Mari sidoo kale wararka maanta cusub waxa kamid ah dawladda Qatar ayaa markii ugu horeysay waxay ku dhawaaqday in lacagtooda riyaalka ay runtii hoos in yar u weecatay marka lagu sarifayo lacagta dollarka waxayna sheegeen in markii hore ila tan iyo sanadkii 2001 lacagta Qatar ay taagneed 3.64 oo dollarka ay lagu sarifayay uu ahaa hatana ay xogaa hoos ugu dhacday lacagta Qatar 3.66 iyo 80 falis ay noqotay 80 riyaal ay noqotay oo ay maartay sheeg xogaa aad moodo in 64 halka ah ilaa adigu lacag ilaa 3 points ah ay ku korodhay qiimihiisi taasoo ka dhigan in ay yiraahdeen tan iyo intii shidadu bilaabatay bishan shanteedii waa markii koobaad lacagta riyaalka ay in yar liicdo balse waxay sheegeen in haba yaraatay wax khatara uusan ku jirin aysan riyaalku uusan wax baqdina loo qabin aysan dhaafi door war wax aad u yar marka la eego inaga marka loo eego lacagteena ama lacagta Soomaaliya sidii maalin walba u baabacdo ama dalalka kale Afrika sida noqoto waxa laga hadlayaa waxa weeye waa 2 senti iyo 80 yani falis oo ah lacagta Qatar inay yani ay dib uga dhacday ama ay ku darsantay oo qiimaheedii uu yani wiiqmay balse iyagu dal dhaqaale leh intaasna waxay u arkaan dhibaato weyn dunida marka la eego dabcan waxyaalahaas ayaa xagga dhaqaalaha marka xeelerayaashu ay tafaasiil ka bixinayaan ay ku tilmaamayaan hase yeeshee bangiga dalkaas ayaa waxa uu haystaa lacag gaaraysa ama reserve u ah oo lacagta loo yaqaano wax loo yaqaano foreign reserves ka lacag gaaraysa 34 bilyan iyo bad ayuu haystaa lacag adaga oo ah lacagta reserve-ka waliba lacagta adaga dawladuna waxay haysataa 200 bilyan ayay haysataa oo iyaduna reserve u ah oo lacagtaas waxayna sheegeen inay lacagtaas ay ka turjumayso in dalka Qatar haba yaraatee lacagtiisa riyaalku aysan wax
khatara ku jirin suuqyada caalamigana ay sideedii looga iibsanayo haba yaraatee aysan wax dhibaato ku jirin sidoo kale xubin u hadashay bangiga dalkaasi qatar bangiga dhexe dalkaasi BNQ ayaa wuxuu hoosta ka xariiqay in haba yaraatee wax dhibaato oo laga qabsi qabo cid lacagtooda inay sii socoto aysan jirin xogaaga yare hoos u dhacana ay kasoo kaba doonaan sida ugu dhaqsaha badan balse ay taaso marmar iska dhacdo inkastoo 2001 ilaa hadda markii koobaad tahay lacagtu muddada 16 sano ay intaas ku darsanto ama dollarku uu challenge gareeyo ama uu ka hor yimaado lacagtooda ama uu ruuxo haba yaraatee wax kastaba in kastaba ha noqotee sidoo kale dalka qatar ayaa wuxuu rajo weyn ka muujiyay inay ka helayaan bay yiraahdeen gacan buuxda ama runtii ay ka helayaan taageero buuxda dalalka European Union ka loo yaqaano marka laga hadlayo arinta qadiyadan ku saabsan dalalkan gacanka carbeed wuxuuna arinta warkaan waxa sheegay Saud bin Abdulrahman Al Thani oo ah ninka safiirka ah u fadhiya dalkaasi qatar dalka Jarmalka oo la hadlay wakaalada DBA wuxuu sheegay in dhibaatadan lagu ay aaminsan yahay in lagu xaliyo gudaha ururka GCC Gulf Cooperation Council balse sidoo kale ay runtii u baahan yihiin buuri message-yada ama fariimaha ay dirayaan buuri ee awoodda leh ama fariimaha culus ay dirayaan dalalka saaxiibada sida Jarmalka iyo dalalka kale Yurub iyo qof kasta buuri oo kale oo saameyn leh waxaan doonaynaa buuri cid walba inay miiska wada hadalka timaado iyadoo xataa ay joogayaal uu ka noqonayaan buu dalka reer Yurub balse bal ogaado meesha qatar ay ku taageertay argagixisadana ay cadeeyaan wadamadaas wuxuuna sheegay arinta ku saabsan qadiyada qatar inaysan ahayn oo kaliya in xukunka qatar lala dagaalamay balse wuxuu yiri ardaydii ayaa waxa la yiri 2 week gudahood 2 toddobaad gudahood ka baxa dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta iyo sidoo kale Bahrain ayagoo waliba xitaa wuxuu yiri ka hor wali waxa amarka ayagoo xilli lagu jiray buu yiri imtixaanaadkii ama imtixaan dugsiyeedkii iyo kuwii jaamacaduhu dhamaan loo fadhiyay waxaana runtii la xiray buu yiri cirkii iyo dhulkii iyo badii iyo sidoo kale cid meel kasta oo dalka ay wax uga imaanayeen iyadoo aan wax nooti aan la siinin wax maaragtay sheeg digniin ah oo xataa aan maalmo loo qaban taasoo si degdeg ah 5tii bishii maalintii Isniintii loo xiray wuxuuna yiri dadkii ayaa waxa lagu yiri waxa idinka xaraansan inaad safartaan wuxuu sheegay in 40% gaaska ay ku nool yihiin maadaama dalalkaasi dalal saxara oo aad ku leeyihiin yihiin gaar ahaan dalka wuxuu yiri isku tag Imaaraadka Carabta 40% iyo waliba cuntooyinka waxyaalaha gaasta lagu karsado ay uga yimaadaan buuri dalka iyaga Qatar balse anagu maanan xidhi buuri maxaa yeelay ma doonana buuri in xaaladdu ay ka sii darto ama ay maartay sheeg oo dasii jabsato waana isxakameynay ayuu sheegay ninka la yiraahdo Saud bin Abdulrahman Al Thani oo ah safiirka dalkaasi Qatar u fadhiya dalka Jarmalka sidoo kale waxa ay arinta gaaska Qatar ay bixiso ee dalkaas ay siiso ka hadlay markii ugu horeysay shirkadda la yiraahdo Sharjah National Oil Corp oo laga leeyahay dalkaasi ama ku taala dalkaasi isku taga Imaaraadka Carabta waxayna maalinta oo hada sheegeen inaysan rajeenayn in dalka Qatar uu arintaas haba yaraatee uu ka arguto oo ka gooyo buu dalkaasi ama ay maartay wax ku sameeyaan faragelin buu arinta gaasta ay siiyaan dalkaas ee dadku u baahan yihiin waxaana sheegan arintan inaysan marnaba ku milmi karin arimaha diblomaasiyadda inkasta oo uusan soo hadal qaadin ninka u hadlay shirkadaas oo la yiraahdo Hatim Al Musa uusan soo hadal qaadin in dhamaan wixii agabaha ama wixii qutul daruuri ahaa ee dalkaas u tagayay Qatar iyadoo la siyaasadeeyay oo la gooyay balse wuxuu sheegay in tuumbada loo yaqaan Dolphin oo ah tan gaaska siisa dalalkaas waliba dalka Qatar iyo dalka Oman gaaska siisa haba yaraatee aysan wax dhibaato ahi aysan soo wajihi doonin wuxuuna sheegay wax dhibaato ilaa hadda inaysan ama wax dhaqdhaqaaqa oo arinta ku saabsan aysan ilaa hadda aysan muujin Qadariyiintu wuxuuna rajo fiican ka bixiyay in inta arintan taagan tahay haba yaraatee aysan arintaas aysan waxba dhibaato aysan keenin oo uu dalkiisa iyo dadkiisu ay helaan si joogto ay u helaan bahashaas gaastaas ay halka ka helaan waxaana la sheegay in
in maalintiiba shidaal ama gaas gaaraya 2 bilyan oo kubik ay si joogto ah u aadaan dalkaasi isku tag Imaaraadka Carabta iyadoo waxyaalo badan oo ay u isticmaalaan nolosha dadka ay ku dabaraan. sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda dalka Qatar ayaa ku dhawaaqay wali inay sugayaan waxa ugu yeeray liiska la yiraahdo liiska khaladaadka Sacuudigu ay ugu yeereen horay shalay wasiirka arrimaha dibadda dalka Sacuudi Carabiya Adil Al-Jubeir ayaa wuxuu ka sheegay magaalada London inay diyaariyeen wuxuu ugu yeeray liis qoraal ah documentary ah oo ay ka buuxaan buuri khaladaadka dalkaas iyo dhibaatooyinka ay dalalka ku hayaan balse wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ayaa wuxuu sheegay in aysan ilaa hadda haynin waraaqahaas sidoo kalena aan wax arinta ku saabsan iyo dalab ka yimid wadamadan xiriirka goostay aysan u gudbin buuri wadanka dhexdhexaadinta gacanta ku haya ee Kuwait ilaa hadda oo aysan Kuwait waxba soo gaarin ama wax waraaqaay wax dalabaada ama liis uusan soo gaarin wuxuuna sheegay in ay runtii ay og yihiin buuri inuusan haba yaraatee wax ka jira aysan jirin liiskaas oo ay tahay buuri malaawaal iyo eedayn aan sal iyo raatoon lahayn isagoo la hadlayay Qatar TV-ga loo yaqaano wuxuuna sheegay in arintaas ay ayaga ku riday fajiciso balse ay ka dhursugayaan wali ayna salkeeda og yihiin oo ay tahay buuri malaawaal. sidoo kale yaasina waxyaalaha muhiimka waxa kamid ah barnaamijyo waaweyn ayaa ka dhacay dunida ama dalalka Yurub ha u badnaado iyo dalka Turkiga aynu ku horeyno dalka Turkiga magaalada Istanbul waxa isugu soo baxay dabadbaxayaal ruuxaya calanka dalkaasi oo dalkaasi Qatar isla markaana taageero u muujinayay ayagoo ku baaqay in la dhimo bay yiraahdeen oo meesha laga saaro cunaqabataynta dalka la geliyay iyo go'doonka sidoo kale qonsulka magaalada qonsuliyada ku taala magaalada la yiraahdo Istini ee dalkaasi Turkiga sidoo kale ayaa waxa isugu soo baxay dad badan oo ayaguna Qatar taageeraya oo muujinaya inay ka xun yihiin waxa ay ugu yeereen meel ka dhac dhinaca sharciyada caalamiga iyo xuquuqda aadanaha oo dalkaasi lagu sameeyay waxaana halkaas goordama ka hadlay Fatih Al-Kaya oo ah madaxa la yiraahdo hay'adda la yiraahdo Public Special Operation Association oo runtii ay akhriyay warqad ay ku cabaareenayaan wuxuu ugu yeeray xanimaada dalalkaas wuxuuna amaanay doorka ay Qatar qaadatay ee runtii ay dadaalada ku bixisay xagga diblomaasiyadan u martay iyo sidoo kale bay yiraahdeen sida Turkiyiintu ama dawladda Turkiga iyo xukuumadda Turkiga waxay ku amaaneen ururkaas sida ay isku garab taagtay waqtiga adag dalka walaalkooda runtii ay tuseen taageerada soo celisay bay yiraahdeen niyadoodii isla markaana ay qalbiga ugu qaboojiyeen xilligan Ramadaanka. sidoo kale magaalada Paris ee xarunta dalkaasi Faransiiska ayaa ayagana waxa ku soo ururay boqolaal dad ah oo runtii isugu soo baxay banaanka magaalada Paris meesha halka loo yaqaano ama madasha la yiraahdo de la Republic U oo ah xarun ay dadku inta badan isugu soo baxaan waxayna halkaas isugu yimid xubno fara badan oo xitaa lagu yaqaano inay u doodaan ama u dhaqdhaqaaqaan xuquuqda aadanaha waxayna sheegeen inay cambaareenayaan waxa ay ugu yeereen cunaqabataynta dalka la geliyay ee aan sharciga ahayn ee Sacuudigu horkacayo sida ay sheegeen waxayna sheegeen inay tan ka dhigan tahay bay yiraahdeen yaani ciqaab dadka la ciqaabay ku nool dalkaas yar waxayna ku in sida ugu dhaqsaha badan arintan loo fududeeyo dalalkaasuna ay ka noqdaan shuruucda caalamiga ee ku tumanayaana ay joojiyaan waxayna arintan ka dambeysay ama daba socotaa kadib maalin markii Ali bin Samikh Al-Mari oo ah madaxa National Human Rights Committee ama NHRC ee dalkaasi Qatar uu ugu baaqay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan la yiraahdo UN Human Rights Council inay cambaarayso isla markaana farageliso xuquuqda dalkaasi lagu tuntay iyo dad gaaraya 13,000 oo dalalkan u dhashay oo runtii dhibaatooyin loo geystay dhaqaale curyaamin dhaqaale khasab dad loo diiday inay qaataan meydad wadamada kaga dhintay caruur iskuulka laga
laga joojiyey iyagoo xilligii itixaamaadka fadhiya iyo arrimo badan oo tahay. wuxuuna sheegay inuu gudbiyey documentary ballaaran iyo weliba waraaqo fara badan oo ka dhan ah dalalkaasi siday ugu tunteen buu yidhi xuquuqdii aadanaha ee dalkaasi yar isla markaana u go'doomiyeen. waa sida uu sheegay Almari oo markaasi ka hadlayay magaalada Geneva ee dalkaasi Switzerland. sidoo kale magaalada London banaanka safaaradda dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa waxaa isugu soo baxay dad fara badan oo iyaguna mudaharaadaya kuwaas oo iyaguna ku baaqaya in ay la qaado bay yiraahdeen xanibaada iyo godoonka dhaqaale ee dalkaasi la geliyay. waxayna dadkan si weyn u cambaareeyeen waxa ay ugu yeereen xanibaad aan sharci ahayn oo dalkaasi ku baaqeen. waxaana afayeen markii dambe u hadlay oo maartay halkaas ka hadlay uu akhriyay warqad ku socota dalalka arrintan ay khusayso. wuxuuna yiri waxaan u sheegaynaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dowladaha buuri dalalka Saudi Arabia iyo Imaaraadka Carabta in arrintan aysan guuleysan doonin. sidaas ayay sheegeen banaanbaxayaasha reer London oo iyaguna arrintaas ka hadlay. sidoo kale dalka Turkiga ay wararkiisadeen ku noqono maanta wararka cusub ee dalka Turkiga ka yimid wasiirka maaliyadda ee dalkaasi Turkiga ninka leeyahay Nihat Saybiki ayaa wuxuu sheegay in dalkiisu uu hawada u mariyay 5,000 oo tan oo raashin ah dalka Qatar si loo maartay aysan aan loo dareensiin buuri in dalku cunaqabatayn saaran yahay oo ay dalalkii darisku ku kaceen. wuxuuna ka sheegay laga leeyahay TV-ga la yiraahdo Turkish TV in ay sida ugu dhaqsaha badan ayadana ay u dirayaan buuri maraakiib oo uu sheegay in qaarkood already marka gabigoodiba ay hadeerto wadada si hayaan oo ay direenba. wuxuuna sheegay in Qatar wax kasta oo ay u baahan tahay ay shuruud la'aan siinayaan isla markaana aysan xataa ka iibinaynin buuri waxyaalaha iyagu ay u baahan yihiin mooyaane waxyaalaha kale isla markaana ay mar walba taageerayaan ayuu yiri. sidoo kale waxaa markii saddexaad ama afraad cusboonaysiiyey baaqiisa ku socda dalalka isku taga Imaaraadka Carabta dalalka Saudi Arabia iyo weliba dalka Bahrain madaxweynaha dalkaasi Turkiya Recep Tayyip Erdogan wuxuuna sheegay in uu ku baaqayo in arrintan xanibaada la qaado sida ugu dhaqsaha badan. wuxuuna sheegay in dalka Sacuudigu uu karti iyo awoodba u leeyahay inuu arrintaas sida ugu dhaqsaha badan u xalliyo oo waliba uu fududeeyo buuri. wuxuuna ugu baaqay boqorkaas haysta dalkaasi Sacuudiga boqor Salman bin Abdul Aziz Al Saud madaxweyne Erdogan inuu asagoo ka faa'iideysanaya dabaaldega ciida al-Fidri bishan barakaysan ee Ramadaan dhamaadkeeda uu intaan la gaarin si loo muujiyo buuri muslimadu naxariista ay leedahay iyo wanaaga ay leedahay arrinta la qaado. wuxuuna yiri waxaan aaminsanahay buuri oo aan rajeynayaa in arrintan la xaliyo ciidul fidri ka hor. wuxuuna sheegay in dalalka islaamku aysan ahayn wax wanaagsan inay kala qaybsanaantan ku ciidaan oo ay tahay buuri ayaan daro inagu noqonayso iyo ceeb iyo bar buuri boog ah oo runtii aan weligeed inaga hadhin. wuxuuna yiri dalalka islaamku way isku filan yihiin waxayna sameyn karaan inay iyagu arrinta dhamaystaan oo ay walaalnimo ku dhamaystaan isla markaana cid kale soo dhaxgelin. wuxuuna ku baaqay waliba boqor Salman inuu arrinta fududeeyo asaguna uu qaato buuri magaceeda iyo wixii wanaaga ee arrintaas laga helay hadii cidba ay ka helaysa buuri. wuxuuna sheegay in ayagu ay mar walba Qatar isgarab taagan yihiin sababta ay Qatar isku garab taagan yihiin aysan ahayn inay dalalka kale ka xigto balse ay tahay xaaladda la geliyay oo ay u arkaan buuri in waxyaalaha lagu eedeeyay ay yihiin cadaalad darro iyo waxaan la qaadan karin buuri. sidoo kale warbaahinta Carabta ee kale ay u daawacday ama wararka dalka Sacuudiga warbaahintooda iyo dalka Qatar aan iraahdo dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa waxay sheegayeen in xanuunkii uu gaadhay dalkaasi Qatar durwaba oo ay dareemayaan buuri dhibaato iyo maartay sheegeen dawo yaraan oo dawada dalkaasi gaadha ay ka yaraatay balse arrinta waxaa ka jawaabay xarunta ninka u qaabilsan ama agaasimaha guud ee hay'adda caafimaadka ee dalkaasi Qatar oo la yiraahdo Ali Abdullah Al Khatar. wuxuuna sheegay in haba yaraatay aysan jirin dawo yaraan dalka ka jirta. wuxuuna yiri xataa hadii la waayo buur dawooyinkan Yurub ka dalbanay
bilooyinka soo socda oo ay masiibo kaleba ku dhacdo wuxuu yidhi weli dalka iyagu wuu isku sii filaa karaa wuuna haystaa buu yidhi meelo dawooyin u kaydsan iyo waxyaalo maaragtay dadku ay kusii noolaadaan wuxuuna sheegay in sidoo kale mar horeba ay maaragtay fadhiisiyeen oo runtii wuxuu yidhi ay ka baaraandegeen buu yidhi ilihii ay dawooyinka kale ka qaada lahaayeen sida joogtada dhammaanna wadamadii hore ay ka qaadan jireen sida Sacuudiga iyo dalka isku taga Imaaraadka Carabta oo u soo mari jirtay ay kaba tanaasuleen isla markaana ka danaysteen waa sida uu sheegay sidoo kale dalka Qatar ayaa wuxuu beeniyay hadalka laga baahiyay TV-ga dalka Bahrain cod laga sii daayay TV-ga dalka Bahrain ayaa waxa lagu sheegay inuu yahay xubin ka tirsan ama xubnaha sarsare ee la taliya boqor amiirka dalkaasi Amir Tamim ninka la yiraahdo dalka Qatar codkaasoo ah in madaxa ururka dhaqdhaqaaqa shiicada kacdoonka ka waday dalka Bahrain la yiraahdo Al-Wafaq ururka la yiraahdo Al-Wafaq madaxiisa uu la soo xiriiray nin kamida aqalka talada haya dalkaasi Qatar isla markaana uu maleegay TV-ga uu yiri in dalkaasi la afgambiyo military laga sameeyo isla markaana kooxda shiicada gacanta loo geliyo hase yeeshee arrinta waxa ganafka ku dhuftay wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Qatar wuxuuna sheegay wasiirka Qatar inay arrintaas dhacday sanadkii 2011 markii ay bilowdeen buuri qalalaasaha iyo banaanbaxyada dawladda Bahrain looga soo horjeeday shiicada iyo ururka Al-Wafaq ay wadeen wuxuuna sheegay arrintaas inay ahayd arrin ku saabsan dhexdhexaadin labada dalka gudihiisa ah ururkaas ama mucaaradka iyo dawladda wuxuuna sheegay in xataa telefoonka lagu wada hadlay hadalka la bedelay oo uusan ahayn kii saxda ahaa wuxuuna yiri telefoonkaas aan loo diray ninka madaxda ka ururka shiicada dhaqdhaqaaqa ka waday halkaas in ay uga qaateen buuri ogolaansho dawladda oo la hayo buuri warqadii ay ku ogolaadeen inay la hadlaan ama ay qaataan doorka dhexdhexaadinta qadariyiintu wuxuuna wax lagu qosla ku tilmaamay in hadalkoodii inta la bedelay runtii wax aan ku jirin meesha la soo galiyay oo codad kale inta codadkii la jarjaray codadkii la soo galiyay isla markaana TV-ga laga sii daayay si loogu raadiyo buuri dambiyada Qatar laga galay xanibaada degdega ah iyo waliba kuwan waxay yiraahdeen naxariis darrada ah runtii marka la soo koobo qadariyiintu waxay ku faanayaan inay runtii heleen diblomaasiyad xoogan oo taageero ah oo caalamka oo dhan ka timid Turkigu wali wuxuu ku adkaysanayaa halkiisii Sacuudigu waxay dadaal ugu jiraan wali inay arrintii iibiyaan dalka la yiraahdo Imaaraadka Carabta oo mar walba waxay warbaahintooda iyagu ku mashquulsan yihiin inay ogaadaan